بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan hambalyo uga dirayaa guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sanad guuradii 65aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan runtii aan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ugu bogaadinayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xubin kasta ee kamid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qoysaskoodaba waxaan leeyahay hambalyo waxaan kaloo rabaa runtii inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada dib u xoreynta deegaanka sida adag ula dagaalamaya nimanka qawaarijta ah oo argagixisada ah oo dadka Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed ba aqabad ku ah horumarkooda iyo badqabkoodaba aqabad runtii aad iyo aad u weyn ku ah aan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin runtii argagixisadu waa naflacaari waxay marayaan meel gabagaba ah waxaan rabaa marka xubin kasta kamid ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadaalkeeda iyo waqtigeeda inay laba jibaarto si adkayso runtii la dagaalanka argagixisada si aanu xaqiijino dhamaan yoolasha aan leenahay waxaan runtii ciidamada dib u xoreynta deegaanka meel kasta kamid gayiga Soomaaliyeed ba aan ku amaanaya sida hagar la'aanta iyo nafurlimada leh ee ay ula dagaalamayaan qawaarijta waxaana leeyahay si xoojiya muxuu ahay sheegay la dagaalankiina iyo xaqiijinta yoolashiina waxaan rabaa runtii anina fursadan aydan uga faa'iideysto dhamaan ciidamada daraawiishta dawlad goboleedyada oo ayagana runtii la dagaalanka argagixisada qayb aad iyo aad muhiim ka ah waxaan si gaar ah rabaa inaan halkan uga xuso ciidamada kala duwan ee dawlad goboleedka Puntland oo runtii mudooyinkii ugu dambeeyay iyo waqti dheerba dagaal adag kula jira nimanka argagixisada ah maalmihii ugu dambeeyay runtii guulo la taaban karo ka gaaray cadawga waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin runtii waxaad samayseen waxa qof bini aadan sameeyo waxa ugu wanaagsan oo ah inaad naftiina muxuu ahay sheegay iyo dhiigiina baad u hurtaan dadka Soomaaliyeed iyo muxuu ahay dawladnimada Soomaaliyeed marka aad iyo aad mahadsantihiin waxaan rabaa sidoo kale aydan halkaan inaan baaq uga diro runtii guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalka Soomaaliyeed maantay waxaan dagaal kula jirnaa argagixiso caalamiya oo isaga yimiday dunida daafaheeda kala duwan sidaas daraadeed si aan jiritaankeenna iyo muxuu ahay sheegay dawladnimadeennaba aan u xaqiijino qof walba oo muwaadin ah Soomaaliyeed waxa mas'uuliyad ka saaran tahay oo waajib ku ah sidii ay uga qayb qaadan lahayd dagaalka socda qof walba inta ay kari karto waxa la rabaa marka maantay halganka lagu jiro iyo dagaalka lagu jiro waa mid muwaadin kasta ee Soomaaliyeed waajib muqaddis ku ah sidaas daraadeed waxa la rabaa qof walba inta uu dagaalka ka geysan karo inuu ka geesto argagixisadan runtii waa gabagabo dawladnimada Soomaaliyeed waxay soo martay runtii marxalado kala duwan maantayna waxaan islaahay meesha ay soo gaartay waa meeshii ugu wanaagsaneeday la dagaalanka argagixisaduna sidaas oo kale inta dawladnimadu socotay ayuu asuguna wuxuu soo maray marxalado kala duwan meesha ay maanta marayaan runtii waa meel gabagaba ah waxyaabaha yar yarka ah ee ay muujinayaan maalmahan waa wax ay isleeyihiin wali inaad jirtiin tusaalaha noqoto laakiin ma noqonayso meel gabagaba runtii marayaan ciidamada qaranka iyo bulshada Soomaaliyeed iyo ciidamada dib u xoreynta deegaanka runtii dagaal adag ay nimanka kula jiraan waxaan marka fursadan uga faa'iideysanaa dadka Soomaaliyeed inay laabaan oo ay xoojiyaan oo ciidamada qaranka garab istaagaan oo ciidamada dib u xoreynta ay garab istaagaan hadii aanay nabadu jirin ma ima karaan wax horumar noocay doonta ahaatee sidaas daraadeed waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed garab istaaga ciidankiina qaranka garab istaaga la dagaalanka argagixisada muujiya runtii dadnimadiina iyo dawladnimadiina aad iyo aad u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh